kooxda Barcelona ayaanan qorsheyneynin inay sameyso wax saxiixyo dheeraad ah inta ka dhiman suuqa kala iibsiga xagaagan haddii aysan imaanin fursado suuqa oo muhiim ah sida ay sheegayaan ilo u dhow waaxda ciyaaraha ee kooxda iyadoo kooxda haatan ku sugan tahay safar isdiyaarin ah oo Aasiya ah halkaasoo ay kula ciyaari doonaan Vissel Kobe, Seoul FC iyo Daegu FC. Deco ayaa weli jooga Barcelona si uu u xaliyo arrimaha harsan ee suuqa gaar ahaan kuwa la xiriira bixitaanka ciyaartoyda. Kooxdu waxay dhameystiraysaa heshiiska Pau Victor oo ku biiraya kooxda Braga iyadoo la filayo in si rasmi ah loo shaaciyo maalmaha soo socda. Si kastaba ha ahaatee mustaqbalka Oriol Remo oo ah khadka dhexe iyo Nketiah oo ah goolhayaha labaad weli lama cadeynin iyadoo aysan jirin go'aanka madambeys ah oo laga gaaray. Inkastoo waaxda ciyaaraha ay sii wadaan la socodka fursadaha suuqeed, ma jiro qorshe rasmi ah oo lagu kordhinayo saxiixyada kooxda ilaa iyo haddii ay soo baxdo fursad aan laga faa'iideysan karin. Tani waxay muujinaysaa in Barcelona ay diiradda saarayaan hagaajinta miisaaniyadda, xoojinta kooxdii hore iyo jarista mushaarka xad-dhaafka ah halkii ay ka geli lahaayeen suuqa furan oo xad-dhaaf ah. Dhinaca kale, Real Madrid oo go'aanka madambeys ah ka soo gaartay codsigii mushaarka ee Vinicius Junior. Kooxda Real Madrid ayaa la kulantay caqabado hor leh oo ka dhashay wadahadallada qandaraaska cusub ee Vinicius Junior kadib markii xiddiga reer Brazil uu codsaday mushaar la mid ah kan Kylian Mbappe sida uu sheegay wargeyska SAR Deportivos. Codsiga lama filaanka ah ee ka yimid garabka weerarka ayaa hakiyay wadahadalladii iyadoo maamulka kooxda aysan diyaar u ahayn inay la jaanqaadaan dalabka xiddigaas, taasoo dhalisay xaalad cusub oo xasaasi ah oo wajihi doonta labada dhinac xilli ciyaareedka cusub. Mbappe ayaa saxiixay qandaraas 5 sano ah oo uu ku helayo 15 milyan sanadkii oo aan canshuurta lagu darin iyo guno saxiixeed oo dhan 125 milyan taasoo loo kala qeybiyay muddada qandaraas, taasoo celcelis ahaan ka dhigaysa inuu sanadkiiba qaato ku dhawaad 30 milyan. Dhanka kale, Vinicius Junior oo qandaraaskiisa haatan dhacaya 2027 waxa uu Real Madrid ka qaataa qiyaastii 10 milyan sanadkii, taasoo ka dhigaysa ciyaaryahanka saddexaad ee ugu mushaarka badan kooxda kadib Mbappe iyo David Alaba. Laakiin kooxda wakiilada Vinicius ayaa hadda riixaya in ciyaaryahanka loo kordhiyo mushaarkiisa si uu u gaaro kan Mbappe, taasoo la micno ah inuu sanadkiiba heli lahaa wax ka badan 25 milyan. Dalabkani waxa uu noqon doonaa mid culeys ku ah maamulka kooxda. SAR Deportivos ayaa sheegaysa in Real Madrid ay si cad u diiday dalabkaasi iyagoo doonaynin in ay isku mid ka dhigaan mushaarka labada xiddig ee weerarka. Tani waxay abuureysaa xaalad xiisad leh oo saameyn karta mustaqbalka Vinicius Junior ee Santiago Bernabeu haddii labada dhinac ay ku guuldareystaan inay is-afgartaan. Dhinaca kale, kooxda Real Madrid ayaa qorsheynaysa inay iska iibiso daafaca bidix ee Fernando Mendy inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xagaagan, sida uu sheegayo wargeyska Diario AS. Sida lagu sheegay warbaahinta, Los Blancos waxay doonaysaa inay xilli ciyaareedka cusub ay qorshaheeda ku soo kaabto Ferran Garcia iyo Alvaro Carreras oo ah laba ikhtiyaari oo daafac bidix ah. Tababaraha kooxda Xavi Alonso ayaa si gaar ah ugu wargeliyay maamulka in aan la dhageysan wax dalab ah oo laga keeno Ferran Garcia, isagoo si cad u muujiyay inuu doonayo ciyaaryahankaas inuu ka qayb noqdo qorshihiisa kooxda. Garcia waxa uu kooxda kaga soo biiray Rayo Vallecano xagaagii 2023. Dhinaca kale, Alvaro Carreras ayaa isna xagaaga ka yimid Benfica waxaana lagu daray safka kooxda koowaad ee Real Madrid si uu u xoojiyo booska daafaca bidix. Real Madrid ayaa si weyn u doonaysa inay xoojiso kooxda Xavi Alonso kadib markii ay seegtay horyaalka La Liga xilli ciyaareedkii hore oo ay ku guuleysatay Barcelona. Sidoo kale waxaa Club World Cup lagaga reebay wareegga bugbaxa oo Paris Saint-Germain ay garaacday. Ujeedada ugu weyn ee kooxda ayaa ah in xilli ciyaareedka cusub la helo koox xoog badan oo ka jawaabi karta guuldarooyinka dhowaanahan dhacay. Dhinaca kale, Marcus Rashford ayaa wajahaya dhaleeceyn uu u jeediyay xiddigii hore ee Manchester United Louis Zaha kadib markii uu hal xilli ciyaareed ah ugu biiray Barcelona. Rashford oo ka soo baxay akademiyadda United ayaa ka tagay kooxda kadib markii tababare Ruben Amorim uu ka saaray qorshihiisa. Zaha oo la hadlay Betway ayaa sheegay in Rashford uu u baahan yahay horumar dhinaca ciyaarta iyo nolosha, wuxuuna sheegay inuu ka niyad jabay habka uu uga tagay kooxda isagoo aan muujin ixtiraam. Zaha ayaa tilmaamay in Rashford uu wajahay cadaadis weyn maadaama uu ahaa xiddig ay dadku ka filayeen wax badan.
laakiin uusan si buuxda u fahmin mas'uuliyaddaas. Si kastaba, wuxuu rajo ka muujiyay in Rashford ka faa'iideysan karo fursadda cusub ee Barcelona, isagoo ammaanay dadaalkiisa iyo tababarkiisa adag ee uu ku muujiyay baraha bulshada. Wuxuu sidoo kale sheegay in xirfadda kubadda cagta mararka qaar lagala kulmo caqabado halis ah, balse loo baahan yahay in wax laga barto. Guud ahaan waa naga intaa. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.